Ugaarsiga beelaha qaar oo Muqdisho ka bilaabatay waa kuwee beelaha sida gaarka ahi loogu ugaarsanayo caasimadda magaalada Muqdisho. Maxaa lagu ugaarsanayaa beelahaasi? Yaa ka dambeeya ugaarsigooda? Iyo xogo kale oo ka dahsoon ayaan kuu soo gudbin doonaa daawade. Kaga bogo warbixintan. Balse marka hore daawade waxaa si xushmadi ku jirta kaaga codsanayaa inaad subscribe taabato channelkeena, like dhahdo oo aad u sii share gareysa saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. Daawashada iyo la socodkaagu waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin qaali ah oo dhankaaga nooga imaanaysa. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa gobollo ka mid ah dalka ka socday dagaallo u dhaxeeya dadka deegaanka oo is-abaabulay oo loogu yeero macawisleyda iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo isku garab ah oo la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab. Deegaanadan ayaa dhaca gobollo kala duwan oo ka mid ah dalka, waxaana ka mid ah gobolka Hiiraan iyo deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud. Dagaalkan oo ka bilowday markiisii hore kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen deegaano kadibna ceelashii ay biyaha ka cabiyeen dadkii deegaanka qarxiyeen, waxaana mar qura ku bilowday kacdoon dadweyne oo ku aadan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Haddaba beelihii la dagaalamay ama dagaalka la galay kooxda Al-Shabaab ayaa la soo warinayaa in uu ku bilowday ugaarsiga, gaar ahaan dadka indhaha u ah ee abaabulka beelahaasi qaybta weyn ku lahaa sida nabadoonnada, ganacsatada, iyadoo digniino kala duwan loo jeediyey xilli horeba. Waxaana dadkii digniinahaasi u jeediyey ka mid ahaa siyaasiyiin uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare, oo sheegay inay bilaabatay ugaarsiga beelahaasi. Fariintiisa ayaana u dhacaysay sida tan. Waxa uu yidhi feejignaan indheergaradka reer Hiiraan, gaar ahaan beesha Xawaadle iyo beesha Saleebaan ee Muqdisho ku nool, si gaara odayaasha dhaqanka, ganacsatada, culimada iyo inta kale ee muuqata. Waxaan ku baraarujinayaa inay amnigooda xil gaar iska saaraan oo ay feejignaan dheeriya muujiyaan. Waxa uu sheegay inay jiraan cabsi xooggan oo ku aadan dadka ka soo jeeda deegaanadaasi ee indhaha u ah beelaha, gaar ahaan ganacsatada iyo sidoo kale nabadoonnada, inay naftooda halis weyn ku jirto, feejignaan xoogganna ay muujiyaan. Waxaana uu sheegay gaar ahaan dadka ku nool ayuu yidhi magaalada Muqdisho. Cali Yare ayaana sheegay in arrintani oo kale ee horey ugu dhacday bishii hore beesha reer Xaaji Saleebaan oo dagaal kula jirta ayuu yidhi kooxda Al-Shabaab, in magaalada Muqdisho bil gudaheeda looga dilay ku dhowaad 5 xubnood oo ka mid ah dadkii lafdhabarta u ahaa beesha reer Xaaji Saleebaan ee degta magaalooyin ay ka mid tahay degmada ama magaalada Cadaado. Kadib digniintaasi maalmo ka hor ahayd, waxaa Muqdisho lagu dilay 2 habeen ee ugu dambeeyay nabadoonno iyo ganacsato u dhalatay beeshii uu digniinta u jeediyey oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxaana ka mid ahaa nabadoon Cabdullaahi Nuur Seefle, Allah u naxariistay, oo lagu dilay xalay magaalada Muqdisho. Waxaana Cali Yare uu ku soo qoray boggiisa, Allah u naxariista, nabadoonkii labaad ayaa maalmo gudahooda lagu dilay magaalada Muqdisho. Waa digniin aan horey ugu jeediyey ayuu yidhi dadka ka soo jeeda deegaanada uu dagaalka ka socdo. Waxaana uu sheegay in weli ay jiraan xaalado kale oo halis ah, ama in dad badan oo bulshada indhow ah sida nabadoonnada iyo ganacsatada ay feejignaan dheeriya muujiyaan. Waxaana uu sheegay in weli dadka qaar ay yihiin kuwa la bartilmaameedsanayo ee ka soo jeeda beelaha